واي dhalinyaradu u yihiin awoodda noocaasa sababtoo ah dhalinyarada waxa laga helaa afar shay oo dadka kale odayaasha aan laga helin ayaa laga helaa waa afar shay oo cajiib ah ay leeyihiin afartaas shay maxaa waaye waxa koobaad waxa waaye waxa loo yaqaano al-iimaan bil fikra dhalinyarada hadii fikrad ay u timaado horay ayay ka qaataan wayna rumeeyaan halka dadka waaweyn waxa badan dadka waaweyn maxaa ku badan ya shakiga ku badan Soomaa waxa maxay maxaa loogu talagalay maxay laakiin qofka dhalinyarada automatically ma aragtaa fikradda uu qaadanaya ama uu waxayna al-iimaan qofku inuu wax rumeeyo aad iyo aad ay muhiim u tahay sababtoo ah qalbigoodu waa nadiif isla markiiba wax bay sameyn karaan waxay sifada koobaad oo aan la wadaagin oo aadka ay khatarta ugu yihiin ayay ka mid tahay sifada labaad maxaa waaye waa al-ikhlaas waa daacadnimo wax markay qabanayaan waxay ka tahay daacadnimadu aad iyo aad ay runtii aad ugu badan tahay dhalinyarada sifada saddexaad oo dhalinyarada aan la wadaagin maxaa uu yahay xamaas waa taqaanaan ama Soomaana dhalinyaradu xamaasad ay leeyihiin eriga xamaasadana aad iyo aad loogu baahan yahay shaqooyinka marka la qabanayo shaqo kasta waxay u baahan tahay si xamaasad leh oo xoog leh oo runtii aad iyo aad u fiican ayay u baahan tahay tan afaraad oo ugu dambaysa oo dhalinyarada aan la wadaagi karin waa waxa loo yaqaan sacrifice ama hurid waxay diyaar u yihiin waxa ay aaminsan yihiin in naftooda iyo maalkooda ay u huraan mana laga helo ilaa dhalinyaro mooyaane cid kale laga mahilaayo sidaas darteeda ayaa dhalinyaradu waxay ku naqdeen ummamka iyo dunida ummadaha dunida dadka u horseeda horumarka u horseeda waa dhalinyaro Soomaaliya waxa ay sugayso waa dhalinyaradeeda haddii aan dhalinyaradu aysan kicin aysan dhaqaaqin oo jihada sax ah loo dhaqaaqina Soomaaliya waligeena waxaan joogaynaa meesha aan joogo laakiin diyaar ma u nahay dhanka fiican aan u dhaqaaqno insha Allah taala dhalinyaradu waa dhankaas inay u dhaqaaqaan ayaan u rajaynayaa insha Allah taala su'aasha muhiimka oo aan u imaanayna maxay tahay oo aan rabo inaan ku soo gabagabeeyo waa ciwaankii ugu muhiimsanaay ee ahay waa maxay roolka iyo kaalinta dhalinyaradu ay ka ciyaari karaan nabadda iyo horumarka xaqiiqatan waa ciwaan weyn waxaad moodaa ma ahan ciwaan lagu soo khulaasayn karo maaragtaa nus saac iyo 40 daqiiqo laakiin waxaan samaynayaa kaliya waxa loo yaqaano furaha ayaan idin samaynayaa kaalin weyn ay runtii dhalinyaradu ka leeyihiin sida aan soo sheegay isbeddelka ummadeed ay qayb weyn ka yihiin laakiin kaalin noocay hadda ka ciyaari karaan wadankayna marka la joogo dabcan kaalimuhu way badnaan karaan laakiin waxa idin soo khulaaseeyay afar kaalimood oo aan rabo qof kasta oo dhalinyaro ah in uu ciyaaro si uu qayb ugu naqdo horumarka iyo nabadda dalka Soomaaliya iyo dalkayna hooyo si qayb ugu naqdo Soomaaliya ama wadankayna runtii mustaqbal fiican ayuu leeyahay qofka idin yiraahdo Soomaaliya mustaqbal fiican ma lahan maxaa leedihiin wax ka jira warkiisa ma jiraan Soomaaliya mustaqbal fiican leedahay meel fiican ay u socotaa meeshan ka nimid iyo meeshan hadda joogno waxa fiican ماشي هذا عن جوجنا أيام في عن بإذن الله ماشي عن تجي دونا 10 سنة كدبنا يا ماشي هذا جوجنا وحافي عن هاي ماشي عن تجي دونا أيام في عن ضد بدل أو حاجة ضد كان يجبية أما مثال صوماليا مال خربان أو إلا وكلا عرارة أي تهاي ماركتا أي مدن تهاي كاسو كلا تدور كيز هذا جاي سننا ضد كمركة تهريبية ضد كبحية ضد كوحينية وضد كعن لهين همجة يهم الله رنتي ضبط عن لهين وحلاقي يا با qof badan oo dad badan oo dhalinyaro ah oo halkaan fadhiya oo maanta hadii la yiraahdo markab halkaan la soo dhigo ee Canada Mareykan hal aad la yiraahdo dhalinyaro badan oo aan raacin inay joogaan ayaa aaminsana soo saas ma ahan macnaha dhalinyaro halkaan fadhida oo aan baxayn oo dalkooda u joogaan bas cagsiga sax absolutely yes of course dalkaaga ogaaw sababta aan idin leeyahay ma taqaanaa Soomaaliya hadda shaqa loo soo doonanaya ma la socotaan saas dibadda laga imaanaya waa la waxaynaya ajnabiga ayaa noo imaanaya iyada ayaa loo soo maaragtaa haajirooya ama loo imaanaya sidaas darteeda waxaan rajaynayaa dhalinyaradu inay wax badan runtii ay ka faa'iideystaan waxaan rabaa marka afarta qodob si kuwa kaliya ama degdega inaan mid kasta hoos uga hariiqo kadibna insha Allah waxaan gali doonaa su'aalaha iyo doodaha ayaan gali doonaa tan koobaad oo aan aaminsanahay dhalinyaradu inay kaalin uga qaadan karaan maxay tahay waa in dhalinyaradu ay naqdaan ama tagaan bosishanada iyo xilalka leadershipka ama hogaaminta inay tagaan daadisa runtii waxaan aaminsanahay ama koobaad waay sidaas darteeda waxaan doonayaa in aadan marti ka naqanina dalka
iyo xilalkiisa iyo mas'uuliyadiisa marka xil leenahay loolama jeedo absolutely siyaasad kaliya loolama jeedo waxa loola jeedaa meel kasta ee u baahan in la hogaamiyo meel kasta u baahan in la dhaqaajiyo waxa loo baahan yahay inaad qayb noqotaan ama decision makers noqotaan erayga decision maker macnaheedu waxa loola jeedaa ya go'aan qaadasho soo go'aanka dalka laga qaadanayo waa idinku qaybta ugu muhiimsan aad yeelataan kaas marka yeelato maxad awood u yeelahay inaad nabadina wax ku soo kordhiso haye horumarka dalkana aad wax ku soo kordhiso ayaan runtii aad iyo aad muhiim u ah waxaan rabaa fiiri dhalinyaradu waxaan rabaa inaad ka baxdaan waxa loo yaqaan cataw erga cataw ma garanaysan macnaha ama ka baxdaan murugada tawaturka sheegashada oo markasta la leeyahay annaga waa dhibanahay xaalad xumaan ku jirnaa wadankayna amni xumaa ka jira wadankayna shaqo ma lahan wax kasta ee loo baahan yahay waa la abuuri karaa soo saas maahan laakiin haddiisan qofka fikradu ku jirin ama uusan wax abuurayn waa eber sidaas darteeda kaalinta koobaad oo aad qaadan kartaan oo inaad ciriirsataan ciriirsi ma aha in lagu siiyo lagu garta kaliya ma in lagu garta kaliya ma laakiin meel kasta u baahan bulshadan in wanaag looga qabto oo lagu hogaamiyo dhalinyaradu waa inay taagan yihiin meelaha operationada shaqooyinka la qabanayo sida loo qabanayo shaqo kasta ee dalka ka dhaqaaqaysa waa inay dhalinyaradu u noqdaan maaragtaa iyagoo horseed iyo hormuud u noqdaan haddii intaas la helo isbedel wanaagsan ayaa samayn kartaan laakiin ogaada haddaad dalka marti ka noqotaan oo meel kasta marti ka noqoto haye maxaa qabanaysaa wax badan oo qaban karto ama wax badan oo aad ka fikiri karto aba yaraadee ma jiraan sidaas darteeda maxaa ku ballanna kaalinta koobaad oo dhalinyaradu qaadan karaan waa inaad si fiican u tagtaan bosishinada ama meelaha haye leadershipka iyo go'aanka lagu qaato horena u dhaqaajisaan dalkan iyo dadka aad hor u dhaqaajisaan haddii ay tahay arrimaha bulshada haddii ay tahay dhaqaalaha haddii ay tahay siyaasadda dhan kasta oo la gelayo waa inaad kaalintiisa ka qaadataan gaar ahaan meelaha aan raba sida xoogga ah inaad uga qayb qaadataan waa horumarinta bulshada eraygaas waa la fahmayaa rajaynayaa ardada halkaan fadhida social science u badan tihiin gaar ahaan social work aan rajaynayaa iyo ardo fara badan oo qaybo fara badan ka socdaan laakiin community developmentiga iyo bulshada in la hormariyo runtii aad iyo aad ayay muhiim u tahay waxaad ogtihiin magaalada aan ku noolnahay ee muqdisho keliya oo ka kooban meeqa ayay ka kooban tahay waxay ka kooban tahay 17 degmo iyo 3 deegaan soo saas maahan degmo kasta waxay ka kooban tahay wax kasta waxay ka kooban tahay laan kasta waxay ka kooban tahay tabeela iyo xaafad ayay ka kooban tahay soo intaasuba waxay u baahan tahay dad hormariya ka shaqeeya nadaafadeeda jidadkeeda horumarkeeda dhisideeda bilicdeeda intaas oo dhalinyaro loo helin ama awood aan loo helin ma dhaqaaqayso waan rajaynayaa inay shaqo muhiima tahay meeshaas marka la joogo ama la samaynayo qodobka labaad ama roolka labaad ama kaalinta labaad oo aan rabo in ay dhalinyaradu ciyaaraan waa kaalinta loo yaqaano creativity and entrepreneurship dhalinyaradu waa in la yimaadaan hal abuur ganacsi erayga hal abuurka aad iyo aad ayuu muhiim u yahay creativity waan rajaynaynaa maleha صح creativity wasla fahmnay soo hal abuur in lala yimaado gaar ahaan qofku inuu la yimaado fikrad ganacsi fikrad oo dhaqaajin karo hore oo u sameyn karo in uu la yimaado fiiri wadankaynu khayraadkiisa aad u badan yahay صح khayraadka alleena maxaa kamida beeraha haye kalluunka macdinta xoolaha ma fahamteen macnaha intaas oo dhanba xaqiiqatan waxay u baahan yihiin in laga shaqeeyo idan creativity-ga iyo hal abuurka aad iyo aad ayuu muhiim u yahay marka la joogo oo la samaynayo idan qodobka labaad oo kaalin badan dhalinyaradu inay ka qaadato aan rabo waa inaad hal abuur la timaadaan waa inaad fikrad samaysaan hal abuurka waxaa kamid ah hal abuurka ya talasamo organization is one of the runtii creativity-ga aan ka hadlayno oo aad iyo aad ka muhiimka u ah ay sameeyeen ayay ka mid tahay idan hal abuur inaad la timaado hal abuurku dhaqaalana wuu noqon karaa arrimaha bulshadana wuu noqon karaa siyaasadna wuu noqon karaa dabcan saddexda waa isku taa umaleha talasamo saddexda shayba waa isku qaadan kartaa marka waxa loo yaqaan creativity-ga iyo hal abuurka aad iyo aad ayuu runtii muhiim u yahay waa fikrad khatar ah oo qof kasta aan rabo inuu ku fikiro oo dhalinyaro ah ha sugin inaad shaqaale noqoto waligaa ha sugin inaad shaqaale kaliya noqoto waa inaad wax adiga aad leedahay ama aad tala ku leedahay inaad la timaado aad iyo aad ayay muhiim u tahay